aad u deedeeyay kuwankaasoo berigi hore ahaan jiray nin reer magaala carabaha muddo dheer ku maqnaa berigi dambana hodheelo waaweyn Hargeysa ku lahaa waxa la yiraahdaa Maxamuud Cawal Cismaan Tuunyo kii intuu reemiyay noqday ilaa 4 tiro ariya oo waliba u badan idoo haysta heesihii oo sameeyeen wax kamid ah heesihii gacaytay ilaah baa deeq baxshay dulmiga caashiqa kada marka taa gacaytay ayuu wuxuu noo sheegay in wacyigii uu heesta u tiriyay ma ahaane uu beejaj kala ku daray wacyigan maanta taagan magacayga waxa la yiraahdaa Maxamuud Cawal Cismaan waxaan ku magac dheerahay Tuunyo oo marka waxa tay ninkii heestii sameeyay Xasan Aadan iyo ilaah baa deeq baxshay way badnaayeen laakiin ilaa hadda wuxuu bay galay adduun waa wareero wariye sheeka ka hara Ahmed Muuqaado adduun waa wareero wariye sheeka ka hara ruux laba kuma waarayo wad kale oo sibayeen wadaadka wax waan shay wabiinka munaafiq waxay wala loogiyo waxna wuu sibayeen wixii hore aadmiyo walaa soo baarak warido hore aan u bar iyo wax ka garan kara kaas beedkaas ka tirinaya qaybtii labaad hore ila heesta ilaah baa deeq baxsha qaybteedii labaad oo maanta taagan oo siilaayo la hadlaysay iyo maciisa ayaan ku sheegay dalkayga aan oo nabcayn dadkiisana aad u jecel oo aan dubadaabiyeeyo duruufaha waayihiyo dawa laga wada hadlaa dushaynu isagaagnahay dumbaan irbad la isu gelin ilaah baa deeq baxshay dulmigu kii hore ka daran dawladdu tii hore ka daran dadkii caashaqa ma baxo rag iyo dumar la isku daran lama waa dabad wareeg dadkan daalana dayadu dhammaan daamisee delegane ay darxumo dushooda ka muuqatee dullaha waqtigu la dhacay dardaan iyo dawshad kale haddaa ugu sii darteen kuwaanu u doorano ilaah baa deeq baxshay dulmigu kii hore ka daran dawladdu tii hore ka daran dabkii caashaqa ma baxo rag iyo dumar la isku daran lama waa dabad wareeg waxa weeye waa qaybtii labaad ilaah baa deeq baxshay